عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين انت كدب مدن يال يمروين مرتي شرفت قالق اي حفلة نقلت وقيب قشي ما انت اوي تاريخ ذو تاي لباتكي بشي لبات سنة كاللبادة كوني لباتنك وحا هولكا رئيس اي مقالة اللاسعانات قبل كالسول نوغو قبسومي دونا حفلة قلنجبين او اي كقلنجبين ايان اردايدا اسكولكا جلوبال international college qaybihiisa kala duwan ha noqdaana qaybta caafimaadka xafladda tan quruxda iyo qiimaha iyo qaayaha badan sidaa awgeed anigoonan hadalkiisii badin buurahaanoon korin baddana nooga sheekayn aan u bayro hadafkii iyo ujeeddadii aynu isugu nimid waxaan ku bilaabaynaa aayaadka qur-aanka kariimka ah qowlkii alleh waxaa inoo akrinaya qaariga gateway وقاري قدر علي محمد فليتفضل مشكورا مسر قدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينو soo jeedin doona kelmad dardaaran oo ku baxaysa afka Ingiriisiga. Soo dhawow Abduladiif Barre Aadan. Alhamdulillah. Dear teachers, staff, honorable guests, family and fellow graduates, on behalf of the graduate students, I say welcome everyone and thank you for your celebration for this special day with us. I thank Allah who allows us to come here. It is very cheerful for me to be one. Way madda labaad oo iyaduna ku baxaysa afka Carabiga oo ay noo soo jeedin doonto ardayda lagu magacaabo Farduus Cabdisalaan. علم بالقلم علم شرف الإنسان وكرم بحمل رسالة العلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معلم البشرية الخير ومخرجهم من الظلمات والجهل الضلال والنور الإيمان والعلم عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى تسليما. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا فيها أنتم سلام الله نهدي إليكم مع قرون ممزوجا حنيا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتي شرف آدي آد قيمة بدن أكتننا ماموسي قدرين كله وحاكم ذا مامولها معد كفرقان شيخ جامع ياسين فارح مركان غيره شيخ جامع maamulayaasha geyigeena midkii ugu sareeyay magaciisa sharafta leh muunada iyo haybada marna aan ka nusqaamin waa macallin jaamac yaasiin warsame soo dhaweynta ayaa aynu waajib inagu ah ilaahay subhanahu wa ta'ala marar badan waa ka saayna faray nabiguna sallallahu alayhi wasallam waa ina amray waxa si gaar ah dhalinyarta iyo insha Allah ta'ala cid walba ugu baraarujinayna waxyaalaha muhiimka ah ay tahay inaynu ilaalino waxa kamida mas'uuliyadda qofka muslimka ahi waa mas'uul qofku markuu qaan gaaro mas'uul weeyaan nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa alihi wasallam كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته قف كستو إذا كمدا وحبال الراعيي مسؤولية دي سنة آخرة ولا قال حساب تمية مركا هورتا قف ولو با واحد وقاتا مسؤول باتهاي حل با كسارا حلكا حساب أيا لقال حساب تمية أدق أو لقاقا باهي إناد أديار قرودو marka mas'uuliyadaas waa noocyo badan tahay mas'uuliyadda ina saaran maxay mas'uuliyadda inaga saaran tahay mas'uuliyaddu ma waxay saaran tahay qofka xil haya oo ama dawlad xil u haya ama shaqaale ah ama odayga reer leh ama islaanta reer leh mise xil kale waxa jira qaybsan oo qof walba saaran oo ilaahay kala xisaabtamayo xil kale ku saaran baa jira oo ka saaran kow naftaada ayna tahay inaad dareentid oo ku walwashid xilka ku saaran waxa kow ka ah diinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo ku dhaqankeeda iyo ku toosnaanteeda waa lagu dhaqmaa diinta oo lagu toosnaada dhalinyaradu waa iska sahladaan marar badan oo cibaadada iyo salaada iyo toosnaanta iyo مسؤوليات بدن قار بدن إسكما سارن وما دم أيو جدي قد ما هي مرك هرتا وحنا ربنا البرارتشينو إن يحل يه مسؤوليات أرضيرو يدلن يرادو إسساران أو أي إسكا قادن النولش يدوني ده حاجة على إسكا شوكو ما نبى لقالين شبين يومونو عن حل كلا سارنين ما يحل يو قرال يو بوق يقلب بحوق صعدة والحساب تلا دريما كوبي كرين عرب كسته أو وحورية أما قلن كسته أو وحقرا وحان سيد الله هاي جزاكم الله خيرا خير الجزاء بوين هايدينك أبا المريو الله معلمين كوادسها مسكحدا توسيها عقيدة تربيتها تشيلشة معلمين تقاليقا إنك مدن قيمها قايها يقدرينته waxna soo baray noona soo dhabaradaygay siday u soo saari lahaayeen ubaxa aad maanta dhaayihiina ku arkaysaan waxaan idin leenahay macallimiin waxaad naga mudan tihiin duco iyo amaan ilaahayna waxaan idin weydiinaynaa janno inuu abaalkiina ka yeelo 3 talo iyo dardaaran waxaan kula talinayaa dhalintaana codkooda ku hadlayo maanta inay ogaadaan qiimaha waxbarashada inay qadariyaan macallimiintooda inay ilaashadaan oo aysan gorgortan gelinin marnaba islaamnimadooda kadib soomaalinimadooda kadibna dhaqankooda inaad ogaataan haddaynu nahay maanta arday bari waxaynu noqonaynaa hogaamiyeyaal culimo siyaasiyiin iyo aqoon-yahano haddaba su'aashaas weydiinta mudane waxay tahay maxaa lagu gaari karaa waxa lagu gaari karaa dadaal aqoon baarinimo waalid iyo ixtiraam macallin iyo waliba inagoo ogaana xagee ka nimi xagee joognaa xageese u soconnaa waxaynu ka nimi ku dhawaad 30 sanadood oo uu burbursanaa waddankeenu qabyaalad iyo dagaalo sokeeyana ay ragaadiyeen waxaynu joognaa xilliga aynu ka soo kaban lahayn burburkaas kuna fiirin lahayn aayaheena iyo mustaqbalkeena muraayad dhalaalaysa waxaynu ku soconnaa mustaqbal ifaya sidii ay Soomaali adduunka ula tartami lahayd una gaari lahayd haday tahay xaq dhaqaale ganacsi maamul iyo awoodba haddaba yaa laga rabaa shaqadaas adag inay qabtaan runtii waxa laga rabaa innaga hadii aynu nahay dhalinta Soomaaliyeed Soomaalidu waxay ku maamaadaa hadal badan yahaan ma buuxshee waxaan idinkaga tagayaa nin la sugayo ayaad sugin wassalaamu calaykum waraxmatullahi bismillaah hadugeedankadu xabada lagu ilaystaaye mid yaroo inintiisaba soowaal bixiya isaga anfaaciga dhirtiyo wada kaafiyaaye dadkan odaygu goortu ka buxo iyo islaantiisu ubadkooda hadhaba tabcu ayatiin helaaye markii aadan iyo xawayo kaynta la abuuray sidaasay arwaaxdii dhirtuba ku isirnaayeen
إنك أمانة حلكي أغن قابلاي إتالقى بدتكيني هرو وإني أراكتان إسكا وحو قبصدو نولاشو وعوذو بحادكي إسرافكي وفدقو ووحاد قوام بنيسان مهم درعركي لعبتا ولغو أديقاي أحدكي كسلاني حسابو لبيدكي ويان ربي نمو لحد ويبيايو عمله ودواي ونفتي سشق وقلي وبالدعاي استقلالك وحاتم كدغاي ودنيا داي أدبو ما ستي سيدا ونفسنا دي دقيسنس ميزانك الحسنات كان أكو سارة مركز سدحاد وحربية نمهد عليو دمان معلمين كوليجكا Global International College gaar ahaan maamulaha college-ka ahna macalinka maadada xisaabta ahna macalinka koorsada xisaabta ka bixiya college-ka macalin sayid waxaa leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tahay sida quruxda badan aad mar walba ugu dadaalaysid inaad soo saartay arday xagga xisaabta ka dhisan dhan walba ka dhisan waad ku mahadsan tahay baan leeyahay waqtigaaga quruxda badan aad gelisay sidaad dhalinyarada gobolka u dhisi lahayd aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay ilaahay subxaana watacaala ka abaalmariyo adigana marnaba ma gudi kareen abaalkaaga marka xigta waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan marti sharafta qaybaheeda kala duwan ee na soo ajiibtay halkan noogu timaaday farxadda nagala qayb qaadanaysa aad iyo aad baad mahadsantihiin maalahay sida quruxda badan aad noo soo ajiibteen aad farxadda nagala qayb qaadanaysaan ugu hambaliyaynaysaan waad ku mahadsantihiin marka u dambaysa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaanba ardayda ka qalinjibinaysa college-ka oo yani ilaa 3 qaybood meelaha caafimaadka xisaabta iyo luqadda ingiriiska waxaan leeyahay dhammaanteen waan guuleysanay hadafkeennii baan gaarnay dhammaanteen ilaahay subxaana wa tacaala wax fiican waxaan halkan maanta inagoo soo jeedinaya kaga qayb qaadanaya kelmad yar oo ku saabsan guusha wadada guusha sidaan wada hubno dhammaanteenna qof kasta oo inaga mida wuxuu doonayaa guul inuu gaadho laakiin siyaabaha loo gaadho baa kala duwan iyo dariiqyada loo maro haddaba maanta dhammaanteen waxaan wada doonaynaa guul keena ordaya wuxuu doonaya u ordaya waa guul keena fadhiya wuxuu rabaa marun ku haminaya intuu kaco inuu guul soo gaadho keena hurdaana wuxuu ku haminayaa wuxuu ku riyoonayaa marun inuu guul gaadho وياك صدحات dadka geediga aloosay ninkii gamciyay aqoonta ninkaan gardaadin adduunyada geed ku laashay adduunyada garasho beeshay dalkeeduna gubasho biiqay dadkiisuna gaajo xaarmay ayaan gurmadow u helin waxaa geeshkiiyo dagaalka waxaa gilligan qarxaayaan ayuu garsiiya anshaxa iyo garasho fiican asluubta garash saraysa xishoodka muray idaabta qofnimo waa lagu gartaaye habkani waa arrin guli iyo gallada mawluhu baxshaay adduunyadu waa giraane maxaa kala geeyey wiilal gabdhaha kala soocay waayo maxaa gaadhiga socdaalka dadkii qaar golada saaray barkala sigada ku gooyey unbaa goobta lagu yaqaane xaqiiqada aan ku taabto horiyo gobadu u tallaabo haddaan gaasa bixiyo hadalka ujeedkana galac ka siiyo waxaa gadafyada adduunka galaaso ka yeelay aadmi waxaa ninba geed ku waabay malaha waad garanaysaane aqoon iyo garasho weye aqoontu inay dhibgeyso
inay guul badan horseedo haddaan hadalkii ku gooyey gaboodkii laga helayay halkii gurigeed ku yaalay inaan kuu gacantogaalo alleelahay gu garweye aqoontu halkay ku gamado madasha ay soo gandoodo global baa loo yaqaane maruun ubadkaaga geyso soo xarayso diiwaangeli wiilashaada gabdhuhuyay kaa habsaamin hadhowtana gumuro fiican ka gooso aqoon saraysa. To start by, let me first of all recognize the people behind me. They are the cornerstone of everything that happens educational in this society. And I'm very, very happy and pleased to be among those core of the group that make everything possible here. Starting with my mom, Mr. Absamit, my colleagues both in high school and in the Gateway fraternity, and my colleagues in the teaching, the Sheikh, Ayub, and everybody else. Welcome very much and thank you very much for everything.